waxaan aad ugu faraxsanahay in halkan ay isugu yimaadeen ganacsato Soomaaliyeed oo asalkooda ka soo jeeda reer Galmudug qaarkood ay cadeysteen inay halkan ganacsi ku haystaan waa weydiin doonaa canshuur inay bixiyaan marka shirku dhamaado laakiin waxaan runtii aan aad idinkaga mahad celinayaa sida aad isu soo abaabusheen ganacsato kala duwan sektarada kala duwan oo dhan ka shaqeysa ay idinka muuqato inaad tihiin Soomaali oo dhan oo ka turjumaysa macnaha Galmudug ay tahay inuu yahay dhul ay dad Soomaaliyeed wada degan yihiin wajiyada ganacsatada hadda aan arko iyo waxa ay ka turjumayaan waxay ka turjumaysaa dadkii Soomaaliyeed oo halkan ku arkay ama aan cadaado ku arkay ama aan caabud waq ku arkay ama huursho ku arkay ama xaraala ku arkay ama guraceel ku arkay يعني waxay ka turjumaysaa sida Galmudug ay u tahay meel dadka Soomaaliyeed oo dhan wada degan yihiin sida ganacsatadu maanta ay u matalayaan in marka aad ku timaadeen dad Soomaaliyeed oo dhameystiran oo u yimid dadkoodii gaar ahaan gobolkii ay ka soo jeedeen iyagoo ah hormuudkii dalka maadaama aad tihiin ganacsatadii waa ka mahadinaynaa horta marka koowaad intii soo qaban qaabisay oo suurta gelisay inaad intan ku timaadaan waxaan anigoo ku hadlayaa shacabka reer Galmudug magacooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhawaada waxaan idinku yeernay maanta oo aan u codsaday halkan inaad timaadaan marka ugu horeysa inaan idin wargelino meesha ay wax noo marayaan labo waxa aan damacsannahay iyo saddex markaan intaas idin sheegno inaan idin kala tashanno ama aad nagala munaaqashootaan ama aan ka wada munaaqashoono xagee baan halkaas ka aadaynaa sidee baan ku tagaynaa dhowr iyo 10 maalmood oo aniga iyo wafdigayga halkan aan joognay waxa soo gashay shacabka reer Galmudug oo xuquuq idinku leh inaad garab istaagtaan oo gacan siisaan yididiila cusub ayaa soo gashay yididiila horumareed yididiila dawladeed yididiila mustaqbal yididiila inay iyagu wax qabsan karaan haddii la dhiiri waxaa markaa rabaa marka hore inaan hortiina uga mahad celiyo madaxda reer Galmudug gaar ahaan madaxweyne Xaaf iyo Sheekh Shaakir oo labaduba gacan nagu siiyay in dadka reer Galmudug ay intay isu yimaadaan gogol dhigtaan ka arinsadaan ayatiinkooda labaduba waxay aqbaleen in reer Galmudug gogol loo fidiyo gogosha magaalada Dhuusamareeb lagu fidiyo gogoshaasi ay dhasho in doorasho lagu qabto furan hufan oo xor ah xalaal ah labaduba waxay aqbaleen inay nagala shaqeeyaan ka shaqeyntaas ama aqbalkaas ay aqbaleen ayaa ahayd tallaabadii ugu horeysay oo horumarka maadaama Sheekh Shaakir uu nala joogana waxaan rabaa hortiin inaan ka cadeeyo in maalintii aan imid ilaa hadda uu noo fidiyay gacan qof loo fidin karo meeshan aan soo gaarnana uu ku leeyahay inta ugu weyn marka waxaan rabaa inaad u mahad celisaan idinkan waa ka heshiinay in gogol dib u heshiisiineed la dhigo magaaladan Dhuusamareeb oo loo dhigo reer Galmudug bardhow waxaan ku dhawaaqi doonaa annagoo la tashanayna qaybaha kala duwan ee bulshada guddigii isu keeni lahaa odayaashii iyo dadkii isu imaan lahaa guddigii dib u heshiisiintaas nagala shaqeyn lahaa guddi farsameedkii sidoo kale waxay walaalkay Sheekh Shaakir iyo inta la shaqeysa ogolaadeen in dhammaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ay ka howlgalaan magaalada Dhuusamareeb wayna bilaabeen shaqadii wayna joogaan sidoo kale ciidamadii halkan joogay oo suurta geliyay
inay soo gaarsiiyaan amniga gobolka maanta meesha uu joogo waxaa lagu bilaabay maalmihii la soo dhaafay diiwaangelin haddaba socda oo aan aaminsanahay in mar dhow la soo afjari doono wiilal Soomaaliyeed oo dalkan soo difaacay haddana diyaar u ah inay sii difaacaan waxay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada booliiska Soomaaliyeed ama ciidamada nabad sugidda ama ciidamada asluubta taliyayaashii ka shaqeynayana waa ay joogaan marka la soo dhammaystiro diiwaangelinta waxay la mid noqon doonaan ciidamada kale ee dawladda Soomaaliyeed ee xuquuq leh waxaana bixin doona xuquuqdooda dawladda Soomaaliyeed laga bilaabo 1 bisha soo socota haddii Ilaahay yiraahdo marka diiwaangelintu ay dhamaato sidoo kale waxaa xildhibaanada halkan jooga oo nagala shaqeeyay hawshan iyo taliyayaasha waxay safar ku aadeen qaybo ka mid ah gobollada ay ka kooban tahay Galmudug ama degmooyinka sida meeshan ciidanka loo diiwaangeliyay hubka loo diiwaangelinayo dawladda loogu wareejinayo amniga mustaqbalka gobolka ay u sugi doonto iyo dawlad goboleedka Galmudug ayaa degmooyinkii ay dawladda madaxdeedu soo martay taliyayaasha ciidamada iyo xildhibaanadu kulligood iyaguna waxay aqbaleen inay hubkana dawladda ku wareejiyaan ciidamada ay hayaana la diiwaan geliyo la qalabeeyo ay iyaga noqdaan ciidamada ay mas'uulka ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya si kala hadaan u dhigo dhulka ka soo jeedaan oo Galmudug waxa ay muujiyeen qarannimo iyo dawladnimo aan hore loo arki jirin waxay muujiyeen inay aqbalaan inay isugu yimaadaan magaalo madaxdooda waxay aqbaleen inay khilaaf dhinac iska dhigaan waxay aqbaleen doorasho halkan mustaqbalka inay ku galaan waxay aqbaleen hubka inay iska soo wareejiyaan laga bilaabo xaraale ilaa meesha hadda halkan aan joogno welina meelo kala noo dhiman iyadoo weliba aan fursad u helnay aniga iyo wafdigaygu meelahaas aan idin sheegayno dhan inaan baawur ku tagno oo aanan diyaarad raacin macnaheedu waxay tahay dadka Galmudug ka soo jeeda oo aan aad looga hadlin wanaagooda oo kaliya la sheegay kaliya dhinaca khaldan iyaga ka shaqaystay in intaasoo degmo aad isu mari kartid oo gaari ku tagi kartid iyadoo aan cidina ku joojin dibna aadan la kulmin hadda waxay go'aansadeen inay intay isu yimaadaan dawladda ay hubka ku wareejiyaan waxay fahmeen hub la kala haysto inaan wax tarayn waxay kala fahmeen kulligood in qora aad haysato inaan ahayn waxa amniga keena ay tahay in la is aamino la heshiiyo dawlad la wada leeyahay la dhisto taas ay ka shaqeyso sugidda amniga waxay fahmeen in gaargaar iyo degmo iyo gobol aan meel aan cidna gaarsiinayn haddii la idin sheegi jiray Galmudug waa halaysan tahay waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo maanta Galmudug u muuqata inay tahay tusaalaha cusub oo Soomaaliya Galmudug u muuqata meesha horumarka Soomaaliya uu ka bilaaban doono Galmudug qoryo ka madax bannaan hub iyo qoloqolo ka madax bannaan dawlad goboleed dhammaystiran leh shaqadu hadda waxay noo maraysaa marka ciidankii iyo shaqaalihii aan ka keenay xamar oo hadda diiwaangelinta wada inay aadi doonaan Balambal ay aadi doonaan Caabudwa ay aadi doonaan Xaraale ay aadi doonaan Hurshe ay aadi doonaan Bangeele meelaha kale oo aan hubka iyo ciidanka weli noo sheegin inay soo wareejinayaanna iyagana waxaan rabnaa inaan ugu yeerno waxaan aaminsanahay dabayl caafimaad inay ka socoto shacabka iyo dawlad goboleedka mustaqbalka Galmudug idinka waxaan idinku yeernay marka horta inaan idin sheegno halkan meesha aan joogno fursadii ugu weyneed inay shacabkana leeyihiin Sheekh Shaakir iyo dadka la midka ah iyo ciidamada halkan jooga
iyo inteena kale waxaan fahamnay annagu inaan isu nimaadno waa rajada ay leeyihiin dad kale oo walaalaheena oo degmooyinkooda cadow u haysto waxay fahmeen haddii ayaga aanay midoobin kuwa halkan jooga iyo kuwa xaraale jooga iyo kuwa caabud waaq jooga waxay fahmeen haddii iyagu aanay midoobin in 100 kiiloomitir oo xeebta cadowga naga haystaan xoreysan karin in degmooyinka naga go'doonsan dadkeena aanan u gargaari karin in mustaqbalkeena dadkeena ay naga baaba'ayaan fikirkaas caafimaadka qaba ayaan isla helnay haddii aan nahay dadkii idinkaga soo horreeyay halkan laga bilaabo maanta waxaan idinkugu yeernay shaqadaas inaad qayb ka noqotaan haddii Ilaahay yiraahdo reer Galmudug waxay go'aansadeen inay hormuud ka noqdaan nabadeynta dalka Soomaaliya reer Galmudug waxay hormuud ka noqdeen inay qayb ka noqdaan inay bedelaan magacii hore Soomaali u yaalay oo ahaa in amni darre ay jirteen qoryo la haystaan aan la isu iman karin maadaama aad tihiin ganacsatadii reer Galmudug oo aad tihiin dadkii la rabay inay dadkan gacan qabtaan ama la rabay meeshan mustaqbalkeedu iftiin uu noqonayo hadda inay intay yimaadaan ay maal gashadaan si dadka shaqo loogu abuuro idinkuna waxa uga heshaan meeshan magaalo madaxay noqonaysaa degmooyinkana waa la xoreyn doonaa khayraadkeedana waa la soo saari doonaa waxaan idinkugu yeernay dadkuna xaqay idinku leeyihiin idinkuna xaqa ku leedihiin way soo hagaagtay Galmudug ee halkan indhihiina taasaan idinkugu yeernay waxaa kaloo idinkugu yeernay inaan idin sheegno maalmihii halka aan joognay waxaa jiray dad badan oo shaki muujinaya oo aan aaminsanayn meesha aan maanta soo gaarnay inaan la gaari karin weli aaminsan meeshan in laga dhaqaaqi karin qaar baa raba inaan meeshan laga dhaqaaqin waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotiin kumanaankii kun oo qof oo Gurceel isugu soo baxay ama Caabud Waaq isugu soo baxay ama Cadaadad isugu soo baxay oo yiri waxaan rabnaa dawlad oo idinkugu baaqay hadaa ganacsatada tihiin inaad dadkiina u timaadiin dib iyo dheef la qaybsatiin laga bilaabo maanta marka waxaan rabnaa inaadan noqonina dad gurigooda marti ka ah mustaqbalka dadka halkan jooga gobol walba iyo degmo walba cidda laga rabo inay gacan siiso idinka waay meeshan aan idinkugu yeernay maanta waxaan rabnaa inaan idin marqaati gashanno meesha aan joogno iyo waajibka annaga nasaaran mid la mid ah ama ka weyn idin cidla ma ahayn waad nala joogtaan waxaan rabaa marka inaad saas u ogaataan kulligeen mas'uuliyad wadareed ayaa nala ka rabaa dalkan inaan u sameeyno nidaam shaqeynaya gaar ahaan dawlad goboleedka Galmudug waxa kale oo aaminsanahay halkani waa xuduntii dalka waa laf dhabarka dadka Soomaaliyeed intan ayay dhashay Galmudug iyo in ka badan haddii lagu sii dadaala in ka si fiican ay dhalaysaa horumar ka sii weyn ay keenaysaa maadaama taasi ay tahay fahamka aan rabno in uu asaaska shaqadeena u ahaado waxay tahay Galmudug in la hagaajiyo la qurxiyo waa in Soomaaliya la hagaajiyo la qurxiyo inaan xoog iyo maskax iyo waqti aan wada gelino waa soo dhaweynaya waxa kale oo rabaa inaan idin sheego waxa noo soo baxaya ciidan badan oo boqolaal iyo kumanaan ah oo dhalinyaro ah oo naftooda soo qadimay oo xoogan ciidankaas waxaan rabnaa marka la qarameeyo isla markiiba inay bilaabaan markii iyaga la isku dhafo kadib inay gobolada dalka gaar ahaan meeshan inay shaqo ka bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan oo meel walba oo Galmudug ka tirsan oo cadow u joogo maadaama aan midownay la sifeeyo iyadana waxaan rabnaa inaad ku baraarugsanataan waxa kale oo imaanaya meeshan isugu imaanaya adduunyada oo dhan maadaama doorasho ay ka dhici doonto maadaama magaalo madax ay noqon doonto
in magaceeda iyo sharafteeda iyo maamuuskeeda la ilaaliyo waa muhiim in la arko ganacsatadeeda oo imaanaysa waa muhiim in la arko iyadoo maal gashanaysa waa muhiim khilaafkii hore u jiri jiray midnimo in lagu bedelo cidda la rabo inay tusaale u noqoto idinka waayo ku dhawaad 30 sano meeshan ka maqneedeen labada sano soo socota waxaan rabnaa xooggiina ugu badan inaad gelisaan magaaladan iyo galmudug inteeda kale waa idinku soo dhaweynayaa meeshan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntii waqti badan ma hayno mar dhow guddi dib u heshiisiin iclaamin doona gogolaa la dhigi doona guddigaas waxaa ku xigi doona guddiga doorashooyinka dhici doona inta waxaasi ay socdaan gacan walba loo baahan yahay waxa kaloo loo baahan yahay qof walba oo idinka mid ah oo qof reer galmuduga oo meel ka qaylinaysa oo dan gaar ah u qaylinaysa ama siyaasi dan leh ama mid diidan saaxiib la ah waxaan rabnaa inaad tusaale u noqotiin inaad tiraahdiin waqtigaas waa la soo dhaafay danta galmudug ayaan ka hormarinaynaa danta danleyda oo siyaasiyiintu ugu horeeyaan